munaasabaddan lagu bayaaminayay maxadkan cusub ee lagu baranayo habka iyo hanaanka loo sameeyay qaybaha kala duwan ee cuntooyinka ayaa lagu qabtay xaruntaasi oo ku taala xaafadda Badda Cas ee magaalada Hargeysa. Marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Aamin Weli Sheekh Maxamed Jirde ayaa si rasmi ah xadhiga uga jirtay maxadkaasi lagu baranayo cunto karista kaasoo xiriir waxbarasho la leh jaamacadda gaarka loo leeyahay ee Golis. Markii ay marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Aamin Weli Sheekh Maxamed Jirde ay furtay dugsigaasi lagu carbinaya dadka doonaya in ay ku xeeleeraadaan arrimaha cunto karinta ay ka qayb gashay xaflad loo sameeyay dugsigaasi la magacaabay Golis European of Hospitality and Construction. madaxa horumarinta iyo xiriirka caalamiga ee college-kaasi Marwo Farxiya oo xaaska mulkiilaha dugsigaasi ayaa sheegtay in ujeedada dugsigan ay u aasaasan ay tahay in la helo college soo saara dad aqoon durugsan u leh arrimaha cunto karinta. waxaana sheegtay inuu dugsigani xiriir la leeyahay dugsiyo laga leeyahay Yurub. ما هو العالم الذي نعده لطلابنا وما الحكمة في اختيار الفندقة؟ إن كلية غوليس الأوروبية للفندقة تفتح أبواب المعرفة للجميع، وهذا مصاحب للقفزة النوعية التي عرفتها بلادنا منذ قرابة 10 سنوات من الزمن. gudoomiyaha jaamacadda Golis culimo awdiin abwaaniin siyaasiyiin iyo waliba mas'uuliyiin kale oo iyaguna ka hadlay xafladaasi ayaa soo dhaweeyay. maayirka caasimadda Hargeysa oo ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la helo dad aqoon u leh habka loo sameeyo cuntooyinka isla markaana loo soo dhaweeyo dadka dalbanaya. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland horena u ahayd wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Marwo Samsom Cabdi Aadan oo ka hadashay ayaa tiri ووقتيسي مكيمي أدنى نقوم هدنقينا خير كسود ذلك حلوه عقله بقليه إني كلش نربحنا أفراد. marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa uga mahad celisay muwaadiniinta hidisay college-kaasi. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa salaamaya Cumar iyo Fadxiya qoyska maanta halkan inagu marti qaaday ee hawshan sharafta leh soo diyaargareeyay. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waana ku mahadsantihiin. service ama shaqo aad iyo aad dalkan ugu baahan yahay ayaa soo keenteen oo soo introduce gareyseen shaqadan hospitality-ga ama sida loo maamuuso dadka hudheelada iyo restaurantyada yimaada. waa hawl runtii ay aad iyo aad Somaliland ugu baahan tahay. waa hawl aan idinkana duco fara badan idiin soo jeedinayna iyo hambalyo fara badan inaad ka fikirteen oo dalkeena intaa ilbaxnimada abaa ka dhignayd intaana idinku kusoo kordhiseen. aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu khayr ka dhigo oo idiin barakeeyo oo hawshan qabateen uu mid aflaxda ka dhigo. waan hubaa ilaahayna waynu la kaashanaynaa kol haddaa Golis ku xidhateen oo Professor Saciid ku xidhateen inay hawshan idiin hagaagayso. waanu ku kalsoonahay ilaahayna garabkiina ha galo. gabagabadii Marwo Aamin Weli Sheekh Maxamed Jirde marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo kormeertay qaybaha uu ka kooban yahay college-kaasi.